sida aad iminka su-aasha noo weydiisay golaha guurtida maanta waanu hortagnay waana laga yeedha haddaanu saddex xisbiba nahay si aan mowqifteedana u sheegno warkii ugu dambeeyana uga warranno oo halkii xaalad marayso aanu isweydaarsanno hawlaha socdaa waa ogeydeen waxaa ku dhex jiray intii muddoaba xubno badan oo ka mid ah deeqbixiyayaasha ama dunidan caawisa waxayna tartaa xagga horumarinta dhaqaalaha iyo xagga geedi socodka dimuqraadiyadda waxay naga taraysay doorashooyinka waxay naga taraysay diiwaangelintii gacan naga siisay caam ahaanna somaliland saaxiibada badan ee dunida ku nool inala shaqeeya oo dhinaca waxaa kaloo inay ku hawlanaa inay nabadgelyo ka abuuraan si jawi safgarasho loo abuuro dad badan oo gudaha ah oo salaadiin leh oo culamaa udiin leh oo baacamushtar leh oo waxgarad kale leh oo saxaafadda leh waxaasoo dhan yuhuuntoodu meel bay isugu wada tegaysay oo inaga wada codsanayeen intaasoo dhan waxaa inaanu dejinno xiisadda dejinno in la isugu yimaado oo khilaafka la baabi'iyo oo laga wada hadlo oo mal la isla dhigo oo aanu yeelnay waan uga warrannay qodobada ku yaalla heshiiska ah heshiiskaasoo duruucdiisu weliba tahay muddada ka hadla ee la gaaraya farsamada lagu jiro ee gacanta ay ku haynayaan dadka deeqbixiyayaasha ah iyo farsamo yaqaanada ay soo diraan in la yeelo muddadana loo kordhiyo madaxweynaha maanta jooga wakhtigiisii loogu kordhiyo annagoo ku salanay heshiisyadii hore loo gaadhay iyo iyada oo muddooyin fara badan dhowr jeer hore doorashada dib u dhigay oo xilkiisu ka soo bix waaya uu ahaa iyadoo xasiloonida daraaddeed dalka aan u yeelay ayaa haddana maanta markii naloo yeedhay waxaa iman waayey xubnihii ka tirsanaa guddida udub xisbiga udub ayaa iman waayey waxaa ka muuqatay markii aanu ka baxnay ee doodii sii socotay in udub xubnaheeda taageersan golaha guurtida oo isku haleynaya inay iyagu halkaa ay socodsiin karayaan cod ay doonayaan inay heshiisyadii la gaadho ka boodaan maslaxaddooda ka boodaan wixii la wada gaadhay ka boodaan oo ku khasbeen hoggaankii golaha guurtida inuu deg deg u soo dhigo oo ay ku dhuftaan muddo ka badan 7 bilood qaadanaysa loogu dhufto muddo sanad qaadanaysa loogu dhufto kordhintii madaxweynaha maanta jooga taasina wax suurtoobaysa maaha sharcigay ka soo horjeedaa maslaxadday ka soo horjeedaa taariikhda soomaalida o dhan bay ka soo horjeedaa waa baabi'in dalka iyo ummadda ah waxaa iminka wararku lagu soo gaarayaan in meeshii ciidamadii sii xidheen in la doonayo aroorta lagu fidiyo kadib ayaa gudoomiyaha xisbillahi raxmatullahi wa salaam maxamed sallallahu alayhi wasallam